magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco waa caasimada labaad ee wadanka Somaliland waana goobtii lagaga dhawaaqay gooniisutaaga Somaliland barnaamijkan gaarka ayaanu ku eegi doonaa waxyaabaha waaye magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco waa caasimada labaad ee wadanka Somaliland waana goobtii lagaga dhawaaqay gooniisutaaga Somaliland barnaamijkan gaarka ee ku saabsan magaalada Burco ayaanu ku eegi doonaa waxqabadka ugu waaweyn ee u qabsoomay golaha deegaanka ee degmada Burco muddadii ay jireen ayna hogaaminayeen dawladda hoose ee degmada Burco intaaynu ku guda jirno barnaamijkani waxaynu milicsan doonaa wareysiyo kala duwan oo aynu la yeelanay mas'uuliyiinta kagana hadlayaan waxqabadkooda haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee la oran karo oo u qabsoomeen golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxa kamid ah gaadiid kala duwan oo ay u soo iibiyeen dawladda hoose ee degmada Burco kuwaas oo ah kuwa loo yaqaano gaadiid hawleedyada ee lagu sameeyo wadooyinka iyo sirfeeyada lagaga saaro xaafadaha aan wadooyinka lahayn qalabkan gaadiidka ayaa waxa laga milicsanayaa cagafyo iyo sheewalo waxa ugu muhiimsan cagafyo iyo sheewalo oo ay dawladda hoose ee Burco ka dalbatay wakaaladaha gaadiidka sameeya kuwaas oo qaar barooya sidoo kalena waxay soo iibsadeen gaadiidyada lagu ururiyo cashuuraha sida saarafiyo dhahooyin iyo kuwa kale oo loo isticmaalo xashiishka sida iskarogooyinka iyo bas lagu qaado ardayda meelaha fogfog ka soo doonata waxbarashada mas'uuliyiinta u qaabilsan dawladda hoose waaxda gaadiidka sida agaasimaha waaxda gaadiidka oo sharaxaya gaadiidka cusub iyo kuwa la dayactiray ee fadhiyay intii golaha deegaanka ee degmada Burco cusub uu hogaaminayay maayirkani ka hirgalay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa agaasimaha oo sharaxaya cagafyadan aad arkaysaa waa kuwii cusbaa ee maamulkan dambe la jaan qaaday ee uu diray waa grader iyo xabad sheewala magaaladana si la xaale ay marka hore ugu baahnayd aad iyo aadna imika wax uga qabtay oo la shaqeeyay marka sidaasay noola shaqeeyeen cagafyada marka laga yimaado gaadiidyo kale maxaa cusub gaadiidyo kale waxa cusub dawadino hooyina qaar bahalahan yar yar ee la yiraahdo seerafyada kuwaasna way jiraan oo cusub oo ah saddex nooho laba seeraf gaariga gudoomiya waxa iyaguna jira cagafyo aan u diray iyaguna nimanka kicinayno oo aan u diray wixii inta dhaxma beer baa laga soo kicinay soo guri cagaftani waxa weeyaan cagaf bulldozer inta doori naga fadhiday waana tamoosaska magaalada ku wareegsan aan ku xidhnay way naga yara fadhiistay xagga hijiinka u fadhiistay wixii hijiinka galayayba waan u diranay waanu gelinay wuu noo saaray hijiinkii taangii biyaha oo noo maqan ayaa ka dhimanayada wayna shaqo gelisay hadii ilaahay ka dhigo taangaas noo yimaado waxa jira laba cagaf oo iyana laga fadhiyay oo laga shaqeynayo mid aan u tagi doono oo sheewala oo hijiin wixii galayayba aan u diray gacantana imika aan ku hayno si dhaqsaan aan doonayno inay u dhaqaaqdo hadii ilaahay fadhiyo waxa weeye marka hore waa saddex iyo laba tirada gaadiidka cusub waxa weeyaan shan iyo gaariga ma waa 6 weeye marka hore tirada guud oo gaadiidka cusub ama hayraada ma haweenay laba cagaf oo grader iyo shawala iyo 6 gaari oo yar yar laba nooho saddex nooho xabad seerafa xaajiyad la wishleeyahay iyo gaariga maay داوي قاعد يتكلم قاعد نسكين وصدح نوخو حبت سيرفة حاجة اللي بشليه قاعد يتكلم ضيع تري أنا إمسا قاعد يتكلم ضيع تري يا وحوي صدح عقف قاري لقيته غير استا اللي بشليه لبى قاري أو شابوية مثل ضيع تري يا وي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارينا وحوها كوي عصباء إمكان يجيني مقادير بقى نقدر هذا براس بقى كبحي وإنه جين عصب أيا ما يكون قبل كنا وصو قاضي جين كي قاعد تاني مكوها هنا ولا حري وأنا تستونا سين ويدل كانوا يلا واحد كده من تلا بري لا صار ضمن أي فويا لا كده وصو ضمن استرن
isaga gaarigan xaaladiisu waa nooca isna waxa ku jira gaadiidka cusub ee la sheegay baab ku jira in soo iibiyo meel soo qaadan hadii انت هذلي qalabay mashaqal shay laba jooga yaala mid waxa jeedan awlan ay nimka ka soo dhaqaanay gobol cusub kamid ahay inkeedu waa kan uu dheeyahay xal taayir lagu xirayaa un baa ka dhiman dabeedna wala saaraya si uu noo dheey jeedina waa shayar ee kuwa hore naga fadhiyay kamid ah wixii jiray waa noo diray imika waa tiin cusub hadii ay bayd maalin noo shaqo galay wax la wixii galayna waa noo diray wareeg oo dhan ku shaqada walahi jina waa qano caawi aan jirinay sidka galayayda beedna uu shaqo galay qayb shawiishka ayaa wax yar naga xumaadeen wax yarna isbeer ahaan looma helo dibna inaan dibad ka helo iyo inaan dalka ka helo isagoo marka xagaa wiishka iyo nooga cadilay oo nooga fadhiya waa gawaadhidii berigii hore cusbaa ee la iibiyey maamulkii hore wiiliyey beedna xagga jiinka ayuu u fadhiistay ugu fadhiyey intii maamulka cusub yimid gawaadhidii aanu ku xilay aanu shirka jiinka dilinay ee dabada sidii uu shaqo galay ayuu ka mid yahay gaariga hore noo joogay waa grader dabeena waxay nooga fadhiisatay cilad candhada ah alaabtii candhada iyo wixii ka xumaan diyaarsanay maayarku qabanaya Ethiopia ayaa doonayay inuu xagga ka soo baadho hadii ilaahay ka dhigo oo xagga Ethiopia laga helaa oo ka tahay ayadana saasay noogu taaday dhammaan diyaar gelisay hawshii عليكم ورحمة الله وبركاته. قاري أنا وحكي ترى ترى markii hore aan sheegay steed gaari bay ahayd macalaqada cagaf kana ku sagaala oo markii hore dhaafnay waa gaari bas oo weyn oo yana ku cusub ku jira imika leeyay waxaan u shaqeeyaa dhulka iskuulada ayaaba noocaas ee dadweynaha gaariga danaha dadweynaha oo shaqeeyaa horumarinta wadooyinka ayaa waxa magaalada Burco laga hirgeliyay laba wado oo golihii hore qadaraaskiisa bixiyay balse golaha deegaanka ee cusub ee uu hogaaminayo Baayir Muraad uu soo gaaray hirgelinta dhismaha wadooyinkaasi oo kala ah wadada tagta October ee sii barta Caqaayada iyo Tuwali taasoo markii hore burbur xoog leh ka muuqday balse haatan laga hirgeliyay jid laamiya wadada kale ayaa iyaduna ah wadada tagta isbitaalka Badhal ee Burco taasoo iyadana laga dhigay mid laabi ah baayirka magaalada Burco Ustaad Maxamed Muraad iyo ku-xigeenkiisa Mastar Xoday ayaa intii ay golaha deegaanka ee degmada Burco hogaaminayeen waxay hirgeliyeen ololayaal nadaafadeed oo kala duwan kuwaas oo kor lagu qaadayo bilicda magaalada lagana saaray xashiis badan oo saxumo ku hayay magaaladaasi marka laga yimaado wadooyinka hirgalay ee ka midka ah waxqabadka golaha deegaanka ee Burco muddadii uu hogaaminayay golaha baayirka iyo ku-xigeenkiisu waxaa sidoo kale la dhagax dhigay wadooyin hor leh oo laga hirgelin doono magaalada Burco sida wadada tagta xaafada Jarmalka ee ka leexata hoteelka Nasiye ee magaalada Burco ama hoteelka Harwaraabe taasoo uu dhagax dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Warar Cadde sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen barasaabka gobolka Togdheer baayirka iyo ku-xigeenkiisa iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee degmada Burco waxaana sidoo kale wasiirku dhagax dhigay barnaamij kor loogu qaadayo bilicda magaalooyinka waaweyn oo laga hirgelin doono magaalada Burco wadooyinka la dhagax dhigay waxa ka mid ah wadada tagta galbeedka jihada galbeed uga baxda magaalada Burco ee barta hotel Titanic taasi oo dayac weyn ka muuqdo isla markaana burbur badan leh haatan wadadaasi ayaa iyada lagu sameyn doonaa dayactir mashaariicdaasi dhammaantood waxay hirgelinaysaa dowladda hoose ee degmada Burco sidoo kale waxay sirfay ka saareen xaafado aan hore u lahayn wadooyin oo ay u baneeyeen wadooyin isla markaasna la bariyay wadooyin cusub kuwaasi oo u hirgelin doona xaafadahaasi u suuro gelin doona in ay gaadiidku u kala gooshaan balse aanay muddooyinkii hore suuragal ka ahayn in ay gaadiidku u kala gooshaan
daawadayaal haddaba waxaad ku soo dhawaataa waraysiyo kala duwan oo la yeelanay mas-uuliyiinta guddida fulinta ee degmada Burco sida baayirka ku-xigeenkiisa iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose. bismillaahi rahmaani rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti waxaan wanaagsan daawadeed ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku waraysanayno maayirka magaalada Burco ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdi oo loo yaqaano Maxamed Muraad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudoomiye soo dhawaad KR TV ugu horeyn waxaan bixin kooban laga siisaa degmada Burco ee guud ahaan ka tahay maayirka iyo muddadii aan maayirka ka ahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku qabsoodo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. marka hore baxda saxaafadda aad iyo aad baan iyo u mahadsantihiin khaasatan hawnkayga diifka mar labaadka muddooyin waxaa 9 bilood ka yar ayaan xilka haynay 9 bilood waxyaaba badan baa noo qabsaday weli waxyaan ku talagalay sanadka hore ay noo qabsamaan in ka midin weli way noo harsanta laakiin sidaan in badan sheego wixii aan ku talagalay inaanu qabanno wax ama intii ay taalkayagu ahaa inaanu qabanno waqtigaan joogno iska yar 9 bilood ka yar waxaan aaminsanahay inay ka badan tahay marka loo eego awooddeeda dhaqaale halkaa inaan dadaal badan ka muujinay ayaan aaminsanahay. haddii aan soo koobo si kooban aan u sharxo waxyaabihii aanu qabanay 8 bilood iyo waxoogaa ama muddada 9 bilood ka yar markaan dowladda hoose nimi waxa aad u liitay qalabka agabka lagu shaqeeyo ee shaqada ay ka socoto sida baabuurta cashuurta soo gurta kuwa qashinka gura iskarigooyinka iyo wiishashka macadaadka oo يعني جاديد كابوس وسوينا آدي كليتي وأنا ركرا وحسوني هل عرف أويا بس أنا ركرا مركان نني مالني بروح ودرني لا بعرف ووي عرف نوع الشوش الله يقانو نوع الجريل تاعه وحنا قدرنا وشدي لجوسميني waxaan markaa fahamnay in qalabka mustacmalka yani riyadiisa ay yar tahay ay fiican tahay qiimo kasta ha ku kacday inaan qalab cusub siibs waxaan ka dalbanay warshada ilaa 2-3 bilood meelaha ku dhawaad 3 bilood ku dhawaad naga maqnay awalan horta waxaan aan siibnay labada cagaf waxaan kaloo kicinay halkan waxaa fadhiyay afar cagaf yaa fadhiyay afartii cagaf qalabkooda waa diray dhammaantood hal cagaf unbaa waxoogaa weli naga sii yar xun laakiin saddexdii kale wax allaale waxay u baahnaayeen oo dhan waana u dhamaystiray waana u diray qaarkoodna way dhammaadeen qaarna gacanta lagu hayo xagga macdaadkii waanu ka yacni cilbay waxaanu ku xigsiinay baabuurta cashuurta soo gureysay waxaan dekada berbere ka soo iibsanay 5 gaari oo cusub halkana waxaan ka iibinay 2 gaari 7 gaari waanu iibinay waxaanu kaloo kicinay 1 gaari oo kale oo isagana mishiin cusub aan saaray 8 gaari ayaan waxaan ku kordhinay baabuurta soo gureysa cashuurta ayagana halkaasna way naga oodantay waan ku guulaysanay marka waxaan u soo dhaadhacnay baabuurta gurta qashinka meelaha nadiifisa ilaa iyo afriska rogo mashiinadii ayaanu qalab cusub gelinay iyo waana shaqeynay 2 wiishna iyagana waanu qalab cusub aan gelinay halkaana baabuur wixii la oran jiray ama ha cuslaadeen ama ha fududaadeen hawshaas waa naga dhamaatay intaas markay dhamaatay waxyaalihii kale aan magaalada u qaban lahayn ayaan bilownay
waxaan bilownay inaan dhamaystirno laba wado oo contract-goodu maalmihii aanu nimi baa la saxeexay oo naga horreeyay laakiin bilowgoodii iyo dhammaadkoodii baan anagu ku guulaysanay labada wadada manhal meesha lagaa tagtaa qasabka laamiga qasabka ka tagta ilaa manhal waan dhamaystirnay contract-geedi waa naga horreeyay laakiin annagaa bilownay oo dhamaystirnay waxaan iska kaashaday wadada iyo wadada kale October-ba hay-adahan GBLG-ga la isku iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe labadaa wado waan dhamaystirnay waddo saddexaad baa jirta oo iyadana hay-adda dhay la yidhaahdo ay noo dhisaysay oo yuurura la yidhaahdo ka cawal suqaar sukadiisa ee ka bilaabanta socota ilaa iyo markaa suuq bariga ama laamiga bariga iyo laamigan galbeedka labada laami isku xidha waddadaasna iminka halkii ugu dambeysay bay maraysa meel wanaagsan ayay maraysaa waxba uma harsanaa saddexdaa waddo intii aanu joognay bay dhammaystiray iminka aanu wadnaa oo aan dhagax dhignay waddada Charmar Road la yidhaahdo oo ka bilaabanta halkan Nasiib hodheelka Nasiib la yidhaahdo ama Harwara sida loo yaqaano ilaa Charmar taa hadda contract-geeda waan bixinay waana la bilaabaya waxaa kaloo iyaduna iminka aanu bilaabi doonaa waddada caddaan ka timaada ee Afgooye isku xidha iyo caddaan waddadana hadda insha allahu ayaa iyadana la bilaabi doonaa waxa aan iyadana bilaabanaa ka dowlad hoose ahaan aanan cidna la kaashanaynin ee annagu aanu noogu jirto markaa miisaaniyaddeeda waddada hodan qaylo waddada waxaan u jeedaa gaha oo markaa zeroga baarsiyo ka tagta ilaa markaa 1 mitir oo gaha ka sheegay intaasna iyadana waan bilaabi doonaa waxaan dhajinay iminka iyadana contract-geeda hadda bixinaynaa laga soo bilaabo Titanic-ga ama halka cigaal aaga laga soo bilaabo ilaa qaybta Bliiska googo iyo waddada dayaca badan ee ka muuqda iyadana waan dhajinay contract-geedii wiiga dambe insha Allah ayaan markaa iyadana aan contract-geeda bixinaynaa intaas waxaa noo dheer oo miisaaniyadina aan ugu jirin yaan doonaa meel iyadana isugu qaadno hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala na karsiyo waddada jaamacadda Burco oo aad iyo aad noogu muhiim ah oo jaamacadda Burco manbici yani cilmi iyo waliba khaasatan hadii anigu maxalanahay macallin markaa jaamacadda waxaan ku talagalnaa inaan waddada jaamacadda oo laga bilaabayo bridge-ka agtiisa inaan iyadana dhamaystirno ayaan iyadana ku talagalnaa Ilaahayna waxaan ku rajaynayaa inuu hawl yaraato xagga waddooyinka intaasaan ka qabanay inaha markaa qabyada ah aan wali la dhagax dhigay ama aan wali la dhagax dhigin qorshahayaga iminka intaan sanadku dhamaanin insha Allah inta dhameeyo gudoomiye ka warantaa waddooyinka guud ahaan ka warantay inta kilomitir ayaa ugu dheer guud ahaan inta kilomitir ay soo baraya saddexda waddo ee hirgelisay marka laga yimaado kuwa dhagax dhigtay saddexda waddo iminka aan hirgelinay waa 3 kilomitir saddexda waddo waxa weeye 3,000 oo mitir wax ka warantaa waxaa jirta qorshe wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose si kaashanaya lagu hagaajinayo bilicda magaalooyinka waaweyn qorshaha maxaad ka bilowday si xagee ma barinaysaa maxaase idinka qorshaysan inaad bilicda caasimadda labaad ee waddanka kor ugu qaadaan horta ka dowlad hoose ahaan barnaamijkaas waa amar iyo wareegto ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cabdi annaguna ka dowlad hoose ahaan waxaan nagu waajibay fulinteeda amarka wasiirka inaan fulino ayaa nagu waajiba waan dhagax dhignay waana la bilaabay oo iminka meelaha qaarkood waa la bilaabay annaguna waxa aan ka shaqeynaynaa sidii hawshaasi ay u hirgeli lahayd ayaan ka shaqeynaynaa biidin raxmaan gudoomiye waxaad ka warrantaa maalin waxaad seefay marisaan xaafado aan waddooyin lahayn waddooyinka maxaa idinka qorshaysan inaad laamiye ka dhigtaan sidaas wax uga qabanaysaa haddii ay guryo kusoo beegbaan oo kale waddooyinka maxaa idinka qorshaysan barnaamijka waddo barnaynti waa barnaamij iminka noo qorshaysan wiigii walba isniinta iyo khamiista ayaanu u caqdibnay inaan waddooyinka banayno waddooyin badan baan banaynay waddooyinka qaar aan banaynay 20 sano in ka badan bixinaa hadda waddooyinka isniintii dhaweyd aan bilownay baritaan haddii Ilaahay ka dhigo khamiista aan u kala hidoono marka waddada hawdka laga bilaabo ilaa xaafadda October la waxinay waddooyin badan man 4 wadan ka saarnay haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigana بريت خميس
lixda subaxnimo aan ku kala haynaa waxaan jecelahay wadooyinkaas inay dhammaystirmaan oo magaaladu ay wadooyin yeelato dadkii wadooyinkaas deganaa yacni markii aan wadooyinkaa banaynay aad iyo aad bay ugu riyaaqay aad iyo aad baan u soo dhaweeyey xataa waxaa soo dhaweeyey kuwii iyaga ay jiidhay waddadu daaradihii ay waddadu daaradaha qaar baan dhex maray waxaad aad iyo aad markaa ugu bogaysaa markaad aragto yacni ninkii ay gurigiisii iyo daaradiisii waddadii dhex marto cagaftu dhex marayso oo haddana leeyahay markaa xagga u duwaama wada oo kula shaqaynayo yacni wax ilaahay loogu mahadnaqo wey hadda waxaa noo qorshaysan waddooyinkan aynu banayno laakiin mustaqbalka ilaahay subxaana watacaala haddii uuna karsiiyo dee wax kasta waa laga dhigi karaa jay cad baa laga dhigi karaa waddo caadiyaa laga dhigi karaa waxaa noo qorshaysan in aanu yacni waddooyinkaa daryeelno waxaa xusid mudan odayaal isxilqaamay oo xaafadda la yidhaahdo hodan qaylo aagga dhaga yare inay noo yimaadeen oo noo sheegeen in ay contribution hayaan oo ka qaybgeliyaan waddooyinka in iyagu ay sameeyaan marka lacag ururiyaan xaafad ahaan iska ururiyaan annaguna ka dowlad hoose ahaan wixii markaa kale u baahan tahay waddadu inaan bixino oo aan kaalino oo dee hadday qalabkii noqoto iyo hadday noqoto cagafyadii iyo hadday noqoto maaragtay iskargooyinkii iyo dee wixii aanu ku daro waxaanu jecelahay markaa reer burxana sidaas oo kale inay isu kaashadaan waayo maayer jiciir 10 sanadood buu joogay degmada Hargeysa uu maayerka ahaa waxyaabay ugu badnaa ku guuleystay waxay ahayd dadka xaafadu loo intiis aabsho inay ilaa 40% bixiso wadada 60% ka soo hadhay ay dawladdu bixiso waxaan ka rajaynaynaa dadka dadweynaha reer burco oo ah dadweyne aad iyo aad u feejigan soo jeedo hadii jeer horumarka degmadooda iyo waxqabadkooda u feejigan oo dad aad u dhaga fududa inay markaa ku dayan doonaan odayaasha markaa xaafadda hodan qaylo iska abaabulay ee doonaya markaa in ay yacni waddada laamiga ay akala dawladda hoose markaa ay taageerto iyaguna waddada laamiga ay u kacaan hataa halkan waxaa igu yimi oo in badan igu yimi gaadiidkan yar tiga halaga oo waddada mara waddadana hadee jeer marka roobkii yimaadaan meelaha qaar baa biyo fadhiistaan gaadiidkaa yaryar oo aada loogu reeyay waa yacni gaadiid dowlad hoose ahaan aada noola shaqeeya weeye oo aan u mahadnaqayno waxay ii sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan waddadaa samaynteeda oo ay wax u ururin doonaan oo dhaqaalo ururin doonaan waa soo dhaweynayna aad iyo aad baan usoo dhaweynay iyagii guddoomiyahoodaba waxaan odhan karnaa waa shirkad yacni garatay danteeda iyo danta degmadeeda garatay inay contribution ku darsadaan ka keenay markaa fikrad saliima kuwa kale la midkaa shirkadaha kale noocaas kale la midkaa waddooyinku markaa inkasta oo aan waddooyinka qaar imkaana u sameyno tigahan jarmalka qabto oo kale ay waddadaa marayaan xiriirka legbad ka dhaxeeyay inta bayarka ay gurjooga sida u bandhigtay inay ka qayb qaataan mashaariicda horumarinteeda tagoo deegaanaha ka wadan magaalada marka gurjooga aad baan isugu xidhannahay way yimaadeen halkan way igu yimaadeen in badanna meelahan yacni isugu nimi magaalada gudaheeda waan isugu nimi waa dad heelan oo aada ugu heelan inay degmada wax u qabtaan aniga laftigayga aniga iyo 2 xildhibaan oo kale hadda waxay noo soo saareen gurjooga reer Somaliland ee degan Ingiriiska waxay noo soo saareen ogolaanshahan Ingiriis ku tagayna hadda Ethiopia qabanaya oo barnaamijkaas aan tagaya insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadduu igeeyo waxyaabaha kala hadli doono yaan ka wada hadli doono kaliya dee waxyaabaha ma laga hadlay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye dee horumarinta degmada iyo sida ay maartay wasi qayb qaadan lahayn gurjoogu waa dad aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo maskax ahaanba lagu tiirsan yahay wax badanna ka qabtay degmada xaqiiqatan dad wax badan magaalada ka qabtay weeye waxaan doonaynaa inay kasii kordhiya oo kasii tusaalaha caafimaadka waxbarashada biyaha iyo dhalinyarada maxaa la qabatay wada baraysa muddada maya horta dhalinyarada aad baan isku xiran aad iyo aad baan dhalinyarada isku xirannahay oo dee maadaama anigu aan macalin cidda macalinka waa dhalinyarada hada jir oo aan isku dhownahay maba kala fogin xagga caafimaadka wax weyn baan ka qabanay hada jeer caafimaadka aasaasiga ah iyo dee waxaan social healthiga oo kale waxbaan ka qabanaa hada jeer marka roobka da-aan oo kale waxaan kala sameynaa dakhligayaga 5% inaanu bil walba waarka burcaan ku caawino
hadda intii MSF ka baxday waxaan isku xukunnay inaanu bil walba bixino $5,000 oo aanu siino markaa waarka si aan waarku inooga fadhiisanin oo shaqadiisii maadaama MSF ka baxday iyo shirkadii iyo hay'adii ajnabiga ahayd meesha gacanta ku haysay inaan loo fadhiisanin bixitaanka ay baxday marka boqolkiiba 5 baan bixinaa dakhligayga bil kasta haddana waxaan noo qorshaa inaan bil walba bixino $5,000 ayaga caafimaadka inahaas oo kale ayaan ka qabanaa biyaha يعني عاونة بدنا وأنا أجيسنا ويرتاي لكن waxaan xusi karaa in maalintii u dambeysay imika hal shii oo caawimo ah oo lagu caawimay marka degmada in looga dhiso rigbi in marka markii meel laga dhisay waayay dhul inaan u iibinaan u doodo hoosahan aad u qaali rigina maanta alxamdulillah oo shaqeynayo oo biyihiisuna oo biyo macaan noqdeen waxbarashada sidoo kale wax weyn baan ka qabo haddii ay biyaha iskuulada la siinayo haddii ay qaarkood oo leer ka bixino biilasha imika hor yaalay oo kala dabiya waxa ku jira marka biilashii iskuulada aan biyaha kaga bixinaynay waxa kale oo aan bixinaa xaafadda la yiraahdo Ali Xuseen iyo xaafadda la yiraahdo Koosar iyo xaafadda Yuro la yiraahdo saddexda xaafadood subaxii ardayda secondary-ga dhigatay ardayda dugsiga dhexe dhigatay intaan ka soo qaadno ilaa Yuro ilaa Ali Xuseen iyo Koosar in magaalada keeno dabeedna marka ay iskuuladooda marka dhixis waxaan intaan soo qaadno ay waxbarashadooda gutaan inuu hadeer dib u celiyo kharashka inta leeg dugsiyadaasaan ku bixinaa waxaan kaloo bixinaa washmaanada wax ka mid ah imika barnaamijkan hadda aan wado ay noogu jirtaan imika aan iskuulo badan washmaanadooda aan bixino waxaan kaloo bixinaa marka qaarkood shidaal baan siinaa waxbarashada shidaal baan siinaa waxa kaloo inta dheer aan waxbarashada siinaa boqolkiiba 5 dakhligayga bil kasta boqolkiiba 5 oo waxaan siinaa jaamacadda Burco ayaan ku caawinaa boqolkiiba 5 gudoomiye gudoomiye doctor xiriirka inta dhaxeeya xildhibaanada golaha deegaanka iyadoo kale ku leeyihiin horumarinta gabadha shaqooyinka ka wada degmada waxaan oran karaa horta dee xiriirka naga dhaxeeya waa xiriir aan ku qasbanahay inuu wanaagsanaado oo haddii anaga ka fulin ahaan ama kamaayar ahaan xiriirka naga dhaxeeya marka xildhibaanadu hadduu xumaado shaqadii degmada ay xumaanaysa marka waa xiriir aan ku qasbanahay inaan hagaajino inuu wanaagsanaado laba dhinac in laga eego waxyaabaha degmada aan ka qabanayna xildhibaanadu dee qayb ka yihiin oo haddaan iyagu nagula soconin barnaamijka aan soo dhigno aanay noo ansixinaynin aanay nagu dabagelaynin aanay ku samaynin muraaqabo ku samaynin oo aanay yacni xil iska saaraynin horumarka degmada waxaan aaminsanahay inaanay degmada iyo horumarkeedu aanu sax noqonaynin marka xiriirkaygu waa xiriir wanaagsan ma anfinayo oo ma oranayo yacni mararka qaarkood khilaafaad ma iman karo meel haddii rag isugu yimaado shaqa taalo waa la isku khilaafay waxaa la oranayaa ra'yigaa la isku khilaafay aaraadaa la isku khilaafay sidaa aan u dhignay sidaa aan u dhignaa la isku khilaafay laakiin haddii kaasiba uu yimaado fardan wa taqdiiran mid wax burburinaya maha laakiin waa khilaaf ra'yiya oo wax la isku khilaafi karo khulaasatul aqwaal haddaan isku soo duuduubo xiriirka annaga iyo ka fulin ahaan kamaayar ahaan xiriirka naga dhexeeya annaga iyo golaha deegaanka aniga u mahadnaqaya golaha deegaanka aad iyo aad shaqadii wanaagsaneed ee 9 bilood inta ku dhow ay nala shaqeynaya aniga ugu mahadnaqaya oo mahad yani guud ahaan u mahadnaqaya waxaan leeyahay xiriirka naga dhexeeya aad iyo aad u wanaagsan oo niman dhalinyaro ah oo mutacalimiin graduate ku jiraan waa niman yani dee nin walba oo u soo tartamayay inuu taariikh iyo raad dee halkan kaga tago oo la qarsiiyo cidda imaqlays cid kasta oo imaqlays oo daawanaysa saacadda waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka daryeelka xabaalin kasta aabihii iyo awowgii iyo walaalkii gabadhiisii inantiisii inankiisa ku aasan gacan inay naga siiyaan account dahabshiilaan samaynay waanu shaacin doonaa saadkana waanu samaynaa qof kasta oo Somaliland ama magaca muslimba ah waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka wax ka qabtaan aad iyo aad waa mahadsantihiin kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco ahna duqa magaalada Burco Ustaad Maxamed Duraan oo waraysi kooban ugu siiyay xafiiskiisa golaha deegaanka ee ku yaala xarunta dowladda hoose ee magaalada Burco